kula wanaagsan markale khiyaarta nala socota idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan caawa wararka bariga dhexe aad bay isku badbedelayaan daqiiqadba daqiiqada ka dambaysa xiisad iyo sheeko hor leh ayaa soo baxaysa dowladda qatar waxa ay bilowday inay mugda geliso go-aankii iyo soo jeedintii Trump ee ku saabsanayd ebyada colaadda ka taagan magaalada go'doonsan ee Gaza dowladda waxay tiri soo jeedinta Trump waa mid horu dhaca waxa loo baahan yahay fasiraad gooniya in laga bixiyo tani waxay muujinaysaa dareenka caawa ay qaadeen dowladaha islaamka gaar ahaan wadamada Pakistan, Turkiga, Saudi Arabia iyo dowlado kale oo dhowr ah kadib markii Kushner uu soo jeediyay in la isku xiro waa wiilka uu sodonka u yahay Trump in la isku xiro bixitaanka ciidamada Israa'iil ee magaalada go'doonsan iyo waliba hubka dhigista kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta dareen weyn ayaa caawa kacay carabtii oo maanta oo dhan u dabaaldagaysay in heshiis la gaarayo oo dib u dhiska magaaladaasi la guda gali doono ayaa durbaba xaaladdu ay isbedeshay carabta qudheeda waxaad moodaa inay isbedelayaan dowladaha dunida islaamka qatar sidee wax u fasirtay waliba iyadoo ku jirta hanaanka lagu doonayo in lagu dhaxdhaxaadiyo dhinacyadan aadka isku haya warbaan ka siin doonaa arrintaasi dowladda Faransiiska waxay hanjabaad adag u jeedisay dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta Falastiiniyiinta waxay yiraahdeen soo jeedinta Trump haddii aydan fulin waxay idinku dhaca adinka ayaa isku dhigay go'doona ku jirtaan waa la idin gaajeysiiyay caalamkii oo dhan ayaa cabanaya waan idin eegan laanahay haddana haddii aad soo jeedintan diidaan idinka arki doona waxa aad la kulantaan waxay hadalkan jeedinaysaa Faransiisku ama uu jeedinayaan ilaahdee Faransiisku xilli shalay lagu wareejiyay hindisahan Mareykanku uu soo jeediyay in lagu soo ebiyo nimanka la yiraahdo Hamas oo ku sugan magaalada Doha dowladda Qatar aan ku wareejisay Faransiiska hanjabaadiisan maxay ka dhignaa doontaa waxa ay tahay mid ay hadda ku raali gelinayaan Netanyahu oo u muuqda meelaha qaar inuu guula ka gaaray mise waa ujeeddo dhan oo ay doonayaan in dagaalkan lagu soo afmeero dowladda Faransiiska haddii Hamas ay diidaan Paris maxay qaadi kartaa waa su'aal u baahan in la lafaguro barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa haddii guulaha saamaxo waxaan sidoo kale intaan idila jooga eegi doonaa muxuu yahay golaha nabadda ee magaalada Gaza la doonayo in lagu maamulo Tony Blair muxuu ka noqonayaa Falastiiniyiintu xaggee galayaan wadamada dunida islaamku maxay rabaan in ay arrintan lagu gabagabeeyo ma qorshe iyo ujeed lagu gabagabeynayo dhismaha dowlad Falastiin oo ay hadda Israa'iil u aragto inay tahay mid wanaagsan ba barnaamijka ayaan ku dulmarayaa khiyaartayna la socotay si aad macluumaad iyo warar dheeraad ah u heshaan halmaamina YouTube-kana subscribe saartaan shargaysaan muuqaalkan saaxiibadiina aad la wadaagtaan aad baad u mahadsantihiin dhamaantiinba soo dhawaada Ramas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhameystiran waxaana ku diyaara qolol jiif oo heer sareeya hoolka aroosyada iyo shirarka maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan internet xawaare sare leh wiish iyo amni joogta Ramas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka magaalada go'doonsan ee dhibaatooyinku ay ka taagan yihiin waxaa la qorsheynayaa in lagu wareejiyo maamulkeeda golaha nabadda golahan waxaa hogaamin doona madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxaa qayb ka noqon doona xubno khubaro ah oo ka kala imaanaya caalamka waxaana sidoo kale maamul hoosaad la sameynayo oo golahan ay korjoogdoyn doonaan oo noqonaya dad aqoon-yahano reer Falastiin oo aan siyaasadda wax sal iyo raad aan ku lahayn ilaa hadda laakiin marka la fiiriyo xaaladdan sida loo dhigayo qoraayo badan oo carbeed iyo dad wax taxliiliya waxay ku tilmaamayaan gumaysi dadban oo ka horeeya kii kale ee magaaladaasi ka jiray oo hadda si farsamo ah loo gelinayo guud ahaanba shacabka Falastiiniyiinta haddaba golahan muxuu noqon doonaa muxuuse ku fasirayaa telefishinka Al Jazeera maalintii Isniinta ahayd ayuu aqalka cad ee Mareykanku shaaciyay qorshaha nabadda ee lagu soo afjarayo dagaalada ka soconaya magaalada go'doonsan qorshahan ayaa soo bandhigay fikrad lagu magacaabo golaha nabadda oo noqonaysa baa la yiri hay'ad caalami ah oo kormeeraysa maamulka kumeel gaarka ah ee ka shaqayn doona gudaha magaalada go'doonsan
xilliga lagu jiro marxaladda kala guurka. haddaba sidee loo maamuli doonaa magaalada? qorshuhu waxa uu dhigayaa in guddi kumeel gaar ah oo ka kooban aqoon-yahano falastiiniyiina oo aan siyaasiyiin ahayn ay si toosa u maamuli doonaan adeegyada maalinlaha ah iyo xaaladaha dadkaasi lagu samata bixinayo ee ka jira magaalada colaaduhu ay halakeeyeen 2 sano. guddigan waxaa dusha kala socon doona baa layidhi golaha nabadda oo ah meeshaan u jeedno, oo ah mid madax bannaan, madaxna ay ka noqon doonaan ama uu hogaamin doono Donald Trump, halka xubin uu ka noqon doono ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Ingiriiska Tony Blair. maadaama Trump uu hogaamin doono Maraykanka ama uu hadda hogaamiye ka yahay, Blair waxa uu noqon doonaa hogaamiyaha dadban ee la qarinayo in golahan looga dhigo mid dhammaystiran. Xamaas laguma darin qorshaha, waxaana si cad loo sheegay in aanay wax dowra ku yeelan doonin maamulka magaaladan sida ku qoran dhismaha golahan iyo waxa uu noqon doono. haddaba maxay tahay sababta carabta iyo qubarada aadka ugu dhundaloosha arrimaha gobolka bariga dhexe ay u dhaliilayaan golahan? soo bixitaanka magaca Tony Blair ayaa kiciya muran ballaaran, maadaama uu weli xasuus ku leeyahay dadka Falastiiniyiinta ah iyo guud ahaanba bariga dhexe sabab la xiriira doorkiisa dagaalka Ciraaq ee 2003. Mustafa Barghouthi oo xogeeye ka ah madal qaran oo Falastiiniyiintu ay ku midaysan yihiin ayaa yidhi, dalkeenna horay ayay u soo galeen gumaysi Britain ee hogaaminaysay, magaca Blairna laguma soo sheeg qaadi kara dadkan oo waxay xasuusanayaan dagaalkii Ciraaq iyo wixii ka dhacay Karbala iyo magaalooyin ay ka mid tahay Baghdad iyo weliba Salaaxudiin iyo deegaano kale. sidoo kale nin lagu magacaabo Francis Albanese oo ah ku-xigeenka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ee dhulka Falastiiniyiinta ayaa mar wax laga weydiiyay Blair iyo ujeedadiisa waxa uu ku yidhi, ma Tony Blair? kadibna waxa uu saaray halkaasi calaamad su'aal. wuxuu yidhi, maya, gacmahaada kala bax dhulkan Falastiin, ma tihid buu yidhi nin mudan inaad hawshan ka shaqayso. haddaba maxay qaban doontaa hay-addan, maxayna ka shaqayn doontaa? golaha nabadda waxa uu maamuli doonaa dhaqaalaha iyo dib u dhiska magaaladan ilaa inta maamulka Falastiiniyiintu ay dhammaystirayaan barnaamijkooda dib u habaynta. lama cayimin jadwalka waqtigan uu golahan shaqaynayo, balse waxaa la sheegay in hay-addan ay kooxo caalami ah u diyaarinayaan fikrado maalgashi iyo mashaariic dib u dhis oo laga doonayo magaaladan go'doonsan. Trump durbaba waxa uu helay taageerada carabta, aad ayaa loo soo dhaweeyay kadib shirkii New York ka dhacay markii uu soo jeediyay arrintan. shirkaas oo ay fadhiyeen wadamo ka socday dunida islaamka iyo kuwa carbeed labadaba. kulanka kadib muddadaasi waxa ay soo saareen bayaan oo ay ku taageerayaan in ay tahay wax idedeelo leh oo si weyn ay u soo dhaweynayaan guud ahaanba xaaladdan cusub. waayahay, dowladda qatarna waxa ay si rasmiya uga hadashay mowqifka isbedelay ee dowladda Maraykanka, go'aanka dowladaha carabta iyo weliba in loo baahan yahay go'aankii Trump uu soo saaray bal dib in loogu noqdo kadib markii ay xanaaqeen dowladaha ay Sacuudiga iyo Turkigu ay ka mid yihiin markii Kushner oo ah wiilka uu sodonka u yahay Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu labadaba ay wax ka bedeleen hindisihii loo diray wadamada islaamka. ra'iisul wasaarahana wasiirka amuraha dibadda ee dalka Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ayaa sheegay in qorshaha uu soo bandhigay madaxweynaha dalka Maraykanka Trump ee ku saabsan magaalada go'doonsan iyo mabda'a guud ee u baahan yahay buu yidhi in laga doodo faahfaahin iyo habka loo dhaqan gelinaya labadaba. waxa uu Trump soo dhiibay duuduub looma laqi karo, ayuu leeyahay ra'iisul wasaaraha Qatar. Sheikh Mohammed oo la hadlay telefishinka Al Jazeera ayaa xusay in qorshaha weli uu ku jiro marxaladii hore, isla markaana loo baahan yahay in si cad loo qeexo gaar ahaan qaabka loo saarayo ciidamada Israa'iil ee ka dhex dagaalamaya magaalada go'doonsan. halkan waa meesha Kushner uu soo jeediyo uu leeyahay waa in bixitaanka ciidamadan iyo la isku xiro buu yidhi
dhinacyadan kale ee falastiiniyiinta inay hubka dhigaan. ra-iisul wasaaraha waddanka qatar waxa uu sheegay in wafdiga xamaas loo gudbiyo qorshahan lana filayo maalmaha soo socda war inay ka soo saaraan. wuxuu carabka ku adkeeyey jawaabta kama dambaysta ah inay ku xirnaan doonto wax heshiisa oo dhex mari doona kooxaha falastiiniyiinta. dowladda qatar waxa ay ku doodaysaa weli in ay diyaar u tahay in ay kaalin ku bixiso dadaalada la doonayo in heshiis dhammaystiran looga gaaro colaadan gaamurtay ee muddada dheer soconaysa. dowladda faransiiskana waxa ay caawa si lama filaana ugu goodisay nidaamka hubaysan ee dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta falastiiniyiinta. waxay yidhaahdeen haddii aad nabadda qaadan weysaan waxaa la gaaray waqtigii kama dambaysta ahaa, marmarsiyo kale waa dhammaatay ayay leedahay dowladda faransiiska. wasiirka amuraha dibadda faransiiska oo la hadlay raadiyaha dalka faranska ee RFI la yidhaahdo ama raadiya France International ayaa sheegay in kooxda xamaas aysan u harin marmarsiyo dambe oo ay ku diido qorshaha lagu soo afjaraya dagaalka. isagoo hadlaya waxa uu yidhi dib u dhigis dambe ma jirto iyo weliba waa la guuldaraystay, sidaa daraaddeed waa inaad duuduub ku laqdaan waxa laydiin soo bandhigay. waxa uu yidhi waa laydin go'doomiyey, baahi fara badan ayaa idin gaartay, caalamka ayaa arkay meeshaa maraysaan, sidaa daraaddeed waa in aad aqbashaan xabad joojintan iyo heshiiskan guud ee la doonayo. waa hadalkii ugu adkaa ee ka soo baxa dowlad reer galbeed ah oo si weyn loogu degayo dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta falastiiniyiinta xilli xaaladda gobolka bariga dhexe ee hadda meel xasaasi ah taagan tahay. marka laga yimaado dowladda faransiiska waxaa jira dowlado kale oo diidan qaabkay wax u socdaan. turkigu waa xanaaqay, sacuudi carabiya caawa meel laga sara dhiig male, boqoradeedu waa yaaban yihiin, kuwo kaloo carbeed waa dhunteen. dowladda masar waxay raadinaysaa war waxa sidan ha laga bedelo. netanyahuna guul ayuu la jiifaa oo waxuu isu arkaa in uu ka guulaystaba guud ahaanba carabtii raadinaysay in ay falastiin noqoto dowlad dhammaystiran. hase haatee ilaa iyo hadda qorshaha laguma soo dirin 159 dowladood oo ka mid ah 193 waddan ee qaramada midoobay ee sida rasmiga u aqoonsaday dowladda falastiin. akhyaartayna la socotay muuqaalkana intaas ayaan ku gabagabaynayaa. waa cabdicasiis barrow idile nabadgeli. Ramaas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhammaystiran waxaana ku diyaara qolol jiif oo heer sarreeya, hoolka aroosyada iyo shirarka, maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan, internet xawaare sare leh, wiish iyo amni joogto ah. Ramaas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka.